saxaafadda koonfur afrika ayaa si weyn u hadalhaysa heshiis ay shalay kala saxiixdeen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee tan koonfur afrika kuwaas oo heshiis taariikh ah ku kala saxiixday magaalada Pretoria shir jaraa'id ay shalay si wada jir u qabteen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasan iyo wasaaradda iskaashiga caalamiga ee koonfur afrika Matiya Kiwane Mashapani ayay kaga dhawaaqeen in labada dowladood ay kala saxiixdeen heshiis diblomaasiyadeedkii ugu horeeyay wasiiradda ayaa sheegtay in xiriirkan uu dalkeeda siinayo fursad ah inay ku lug yeelato arrimaha Soomaaliya si ay gacan uga yeelato dib u dhiska Soomaaliya ka socda waxay sidoo kale sheegtay in kumeel gaar ay u dirayaan Soomaaliya iyadoo sheegtay in mustaqbalka dhow ay soo dhaweyn doonaan safiir Soomaaliya ka socda wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in hawshan loo baahnaa kala hore wuxuuna warka intaasi ku daray in dowladda kumeel gaarka Soomaaliya ay xaqiijisay kala barbartilmaameedyadii howlqabadka loogu talagalay ka hor bisha Agoosto waxaa dhawaan dalka koonfur afrika imaanaya ilaa 30 xildhibaan oo Soomaaliya ka socda kuwaasoo safar weeragnimo ku imaanaya dalkani gaar ahaan dhanka dastuurka iyagoo la kulmaya khubaro iyo xildhibaano u dhashay dalkani koonfur afrika ila wareediyo muhiim ah oo hesha TV-ga caalamiga Universal ayaa sheegaya in wasaaraha dowladda kumeel gaarka Soomaaliya Dr. Cabdullaahi Gaas uu isagana imaanayo dalkani koonfur afrika todobadeeda soo socda waa markii ugu horeysay oo labada dal u dhex maro heshiis taariikhi ah iyadoo dad badan oo daroosa siyaasadaha ay sheegayaan in xiriirka koonfur afrika uu yahay mid muhiim ah maadaama uu koonfur afrika ka mid yahay wadamada محمد ديق مصنور ديق درجو Universal TV South Africa